arinta howlgalka Puntland waxa ka socda dagaalo muddo ku dhow sanad ciidanka daraawiishta Puntland ay kula jiraan kooxda Daesh ee ku dhumaalaysanaya buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari. maxaa kala socotaan xaaladaasi muxuu yahay doorkiina wasaaradda gaashaandhigga? runtii wasaaradda gaashaandhiggu way hambalyeynaysaa horta cadow Soomaaliyeed meel kasta oo lagu la dirirayo kooxahan khawaarijta ee Daesh iyo Al-Shabaab leh iyo cid kasta oo la dirirta waan hambalyeynaa. hambalye mudan yihiin, waxay mudan yihiin garab istaag, waxay mudan yihiin inaan la siyaasadayn. annagu haddaan wasaaradda gaashaandhigga nahay marnaba siyaasad lagama dhex raadin karo, kama dhex raadinayno cadow Soomaaliyeed oo lala dirirayo. cadow Soomaaliyeed meesha lagu naafeeyo waa cadow dhibaato ummadda ka hartay waa. mararka qaarkood waxaan aragnaa kuwa mas-uuliyiin sheeganaya oo Al-Shabaab magaalo qabsatay buunbuuninayo ku farxaya oo maaragtay ay kala weyn tahay wixii u weynaa oo ciidankii qaranka la dhibaateeyay oo Al-Shabaab baa kor noqotay oo tuulo qabsatay ama magaalo yar qabsatay ee la weyntaan aragnaa. waxaan dhihi karnaa maangaabnimo hadday jirto tii ugu weynayd waa sababtay tahay waxaas kale wax la siyaasadayn kara maaha. wiilka askariga qaranka Soomaaliya uma diriraayo qabiil, uma diriraayo meel gaar ah, waa askari tuutaha u xirtay sharafta dalka inuu difaaco, cadowna ka difaaco. maalinkii xaaladisi ka noqoto inaad buunbuunisid cadowgii haddana aad jeclaatay adigu cadowgaas haddii aad heshaan inaad ka guulaysatid runtii maangaabnimo tii ugu weyneed waaye. waan ku arkay dad mas-uuliyiina qaarkood mas-uuliyiin sheeganaya oo ay la weyn tahay kuwo kale waxaan aragnay markay ciidanku guula gaaraan naxaya oo u arkay Xasan Sheekh inuu guulaystay, koox gaar inay guulaysatay, ka naxayo maanta ka jecel in dhulkaan oo dhan Al-Shabaab ay qabsadaan kuwa mas-uuliyad u socda oo madashaan calaacalku ugu weyn tahay oo meeshaan fadhida Jazeera area guryahan degan kuwan degan kooxdan waxaan dhihi karnaa mararka qaarkood waaba dad doqomaaba caqli badan uusan ku jirin. yacni in maantay ciidankeena la jabiyo shabaab guulaysto si Xasan Sheekh loo eedeeyo madaxweynaha ama xukuumaddiisa loo eedeeyo ayay ka jecel yihiin in ciidanka xoog dalku intay guulaystaan dhul la qabsado cadowgaas Al-Shabaab laga durjiyo. taas waxaa ka sii daran in qofkaasi bari mas-uuliyad rabo oo rabo ciidankan inuu xukumo. waa midda ka sii daran. waayadan afka ku dhagay ayaan dhaweyto sheekay ka dhigteen ah ciidanka waa soo jabay, hal urur oo meel maaragtay isku sheega ma jiro, hal guuto isku nidaamsan ma jirto. maantana waa aragtay waxay ku hadlayaan. nin hambalyeynaya haddii Al-Shabaab meel lagu dilaa ma jiro, laakiin eedu waa ka soo horeysaa haddii Al-Shabaabku waxyeeleeyo ciidankeena. Xasan Sheekh waa ciidankii dayacay. Xasan Sheekh waa markay guulaystaanna waa shib, markii ciidanka xarbu sijaal dagaalku qasab maahan maalinkaas inaad guulaysatid. maalinna waad guulaysanaysaa, maalinna waa lagaa guulaysanayaa, maalin waa isku barbardhacaysaan. dagaal baa la yidhaahdaa, adiga guusha kaliga kulama dhalan. maalinkaas ay sidaas noqoto nimankaasi waa dhiiranayaan warqadaha ka soo horeeya. marka runtii Puntland dagaalka ay kula jirto siyaasadda wixii la isku hayo waa gaar, laakiin dagaalka Daesh lagula jiro waa dagaal xaqa in la gala ay tahay, in la taageero ay tahay, in la garab istaago ay tahay. dowladda Soomaaliyana horena waa uga hadalna, dhowr jeerna waa ka hadalna. waanu isku daynay wax xalaalay wixii aan geysan karno inaan ka geysano, laakiin waa la siyaasadeeyay oo khilaafka siyaasadda maamulka halkaasi kala dhaxeeya dowladda dhexe ayuu soo dhexgeliyay arrintaas. mana fiicana in la soo dhexgeliyo. ciidankoona awood waxay u leeyihiin in ay isgarab siiyaan. cadow haddii lala dirirayo khibrad baa la isdhaamaa, waxaa la isdhaamaa ka faa'iidaysi, waxaa la isdhaamaa maaragtay inay bartaan laftoodu ciidanku buurahaas. ciidamadan dhul fidsan bay ku dagaalamaan, ciidankana buur iyo bad iyo biri iyo dhul caadiyaba inay ku diriraan way tahay. marka runtii annagu waa garab taagannahay
waanan mubaarakaynayna guusha laga gaaray waan rajaynaynaa in la soo dhammaystiro kooxahaasi ay Soomaaliya ka dhamaadaan sababtoo ay tahay hadday soo fidaan waa dhibaato soo fiday oo deegaamada Soomaaliyeed oo dhan bay dhibaato u geysanayaan wax faa'iido ma leh dabcan waxaa jira ciidan dawladda Soomaaliyeed ka amar qaata oo ku sugan deegaanada Puntland sida kol hore ka dhawaajisana wasiir ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ma ku biirinaysaan haddii codsigaasi uu kaga imaado hogaanka Puntland oo hadda faylka dagaalka Daesh gacanta ku hay oo sideedaba ciidankaasi waa ciidankii la diriri jiray Daesh waa ciidankii la kaliyoobay 10 sano ku dhawaad furim buuraha isku jiray waa ciidanka experience-ga iyo khibradda ugu ballaaran leh haddii dagaalkaas la yiraahdo waa ciidankii halkaasba u degay in laga ilaalisho dhulkaas istiraatiijiga iyo dekedaas iyo magaaladaas weyn oo Boosaaso oo u ah laf dhabarta nolosha deegaamada Soomaaliya oo dhan nolosheedu meesha wax ka soo degaantaa ilaa goboladan dhexe Boosaaso wax kala soo degta oo ay soo gaaraan ilaa Hiiraan bay soo gaaraan kilinka shanaad bay gaaraan deked muhiim ah way dekedaas ciidankii iyo magaaladaas ciidankii ilaalin jiray way ciidanka hadda ka hadlaysa waa ciidan diyaar u ah experience leh khibrad u leh aan ku fiirsanayn lafteedu idanna cidna aan ka sugayn waajibkiisa ay tahay inuu shaqadiisa qabsado horeyna shaqadiisa u haysto